سأقول العلاية روب كنا داعي تلفون مرضى مو يجلي وأخو صوب بحالي داعي الباب كيبالي قفرة مكاس علي داعي هبلاي أو يعني ومجوك تالي داعي ولا لي روب يقول داعي عد كان وعد يعني جودة عن اسمرنا وايه محاد عوائل kulantii wacan asxaabta meel kastoo aad joogtaan runtii waxaa maanta farxadii ah inaan la kulmo walaalkay Dalmar Cadow Maalin Dalmar waa aqoonyahan marka hore waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Dalmar soo dhaw waa dhawahay Maxamed Qadar Cabdi sida quruxda badan ay ugu soo dhaweysay page-ka quruxda badan kuma santaa واتاي دلمر طبعا waxaad ii sheegtay oo aan hore uga wada sheekaysanay in qisooyin cajiib ah marka laga hadlayo dhinaca jacaylka iyo dhinaca kale marka la eego bulshada iyo la macaamilkooda ka soo wajahay waxaan jecelahay bal inaan ku horeeyno mid kamid ah qisooyinka jacaylka uu ku taalada kugu reebay aad la kulantay marka hore bal waxaad inooga warantaa qisadaas jacaylka qaabkay ku bilaabatay iyo halka ay ka bilaabatay fafaahin guud bal naga sii okay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan kaaga mahadcelinayaa mar kale sida qurux badan ay wacasuntay barnaamijkani quruxda badan leh magacaygu waa Dalmar Cadow Maalin sida hore uu sheegtay horta qisad jacayl sida way badan tahay laakiin su'aasha isweydiinta mudan qof naafa ama qof aragan naafa ka qabo jacayl horta ma qaban karaa xiriir jacayl ma sameyn karaa wax ma qaban karaa jawaabta inay horta ay soo baxdo ay isweydiiyay tahay ha qofkani hadduu naafa yahay iyo hadduu naafa jacaylka siiso wuu qaban karaa jacaylkani siiso waa indhana ma laha dhagana ma laha jacaylku waa baaxad weyn yahay أنا هذا كور مرة لبا جعيل صامر تي أنت الدنيا ده آثارنا جعيل كقوات وحن سكبرنا قف السوشيال ميديا نسكبرنا وقت بدنا نسكب بحنا رنتي قبل أسي مركان برتي حقيقة هذا صبت أنا هذا أنا أرجع في قبنا أما غير أرجع في كان هاي قفك سوردي سمع رجنا لكن بقلبي أنا نقدر إن يا صوتك أما عدك معانت وقروح البدن لجوارس أي لا يضاهي جواري إن بدنا وذا سرعني وحن وقدام بين عنيجا وحن سويدين جري حديد جوار أنا أشرت إن أرجع لعبه أما كعرته almost وحن وذا سرعني لبصنا يا بر أيان حرير ليني على كل مين ها جعل حريرة كبدي جعل أي قاضي أنا وحنا سكبرنا السوشيال ميديا برتة فيسبوك أنا سكبرنا على ده فيسبوك أنا سكبرنا أنا أنت بدن حكمتي وباقوري جري صورك عن يسارنا عن حلقة فيسبوك يسارنا ما موجودين إن عرق الله أحد كوس أوكيالا وبايحرنا سيا أمبا كوحلينا وحي هذا واحد سوستا لابد كون يا شاني طبعاً كي مركز فيسبوك يورس عن سميه بشي اللي حد إلا يوحنا عن لسه جان قاني لابد كون تضبي طبعاً كي بشي كوي طبعاً حد ودرامي كرتا والله وصلني وما زاد حرير كسب حد وين مركز وحنا ده حد هذا عن كلنا مركز عن أشياء haddii aan kulmeyno in wax walba qof bani aadan oo yahay inaan ku qaadanayso laakiin wali aanan u carabaabin inaan araga la ahay waxaan ku kulanay beerta nabadda xilligaan waxaa joogay Kenya Soomaaliya waxaan imaaday 2017 bishii saddexaad ayaan Soomaaliya imaaday oo xilligaas aan waxbarashadeedii dugsigii sare aan soo dhameeyay kadib wadanka ku soo laabtay gabadhii ilaan Soomaaliya joogtay kadib waxay dhahday beerta nabadda ku kulmeynaa waan aqbalay عزومات واحد سوستا بشي لبي طبنات تاريخ مركز شني لواتك ديسمبر لبي طبنكي يو 30 دقيقة بعد المغرب أي هبينة
galab habeenkaas habeen axad baxayso isniin soo galayso ma iloobi doonin taariikhdeeda waa meel igu qoran waayo gabadhii waa ku kulanna meesha waan wada hadalnay xilli habeen ah aan caadi u sheekaysanay oo kiyaala suudkee ii xirna kulankii koowaad isbarashay ahayd ismaana dareensanin iyadana gabdhaha la socday ana hal wiil baa ila socday oo caawi ii ahaa ushan waa iska soo dhigay ushan maana wadanin maalinkaa waa wada sheekaysanay kulan xigto oo aan qabsanay 3 January maalina jimco ay ahayd oo 9 ama 3 galabnimo aan ku kulmayno hotelkan leeraado Busy House oo Busy House meesha ku kulmayna aan ku heshiinay waa aqbashay ana waan aqbalay marka sidaan u socono ilaan jacayl ay haayo gabadha markan waxaan ka rabaa inaan guursado waxa ii sheegtay gabadhi ama aniga u sheegay aan dhahe in aan araga alla ahay runtii waxay ku naqatay ama kaag way aamin weysay oo kiyaalaan u siibay in qof ila soconin keligii aan socdo wax walba aan isticmaalo runtii ma qiyaasi kari wallahi haddaa dhaho waan ka sheekeynayaa runtii waxaa dareemi karaa nabaro ama waxaan aan filan karaynin inay soo dhacdo kale runtii waxaa la yidhahay kuwii lixaadkooda qabaa maar u weyne halkay geenaynaa qof aragga naafa ka qabo muxuu ii qabanayaa maxaan ka dhigaynaa ragnimo uma aqaaniba qof hadduu aragga beelay ragnimoba uma aqaani oo ma daneeyey unba qofka sidaa markaas waxaan ku dhahay mahmaah ayaa dheesaan dhahay indhaha haddaa laadahay mali'ida qalbiga oo ah Englishkan afka qalaad lagu dhaho blind eyes is not blind mind macnaheeda indhahaas haddaa laahay qalbiyan mali'i runtiina waa way aqbashay laakiin horaa loo dhahay sir naageed lagama salal gaaro dabin la ii dhigi doono ma garan kari kadib iyadoona aan ku faraxsaneen ayay aqbashay in xiriirkii aan sii wadno waxay igu casuuntay gurigeyga kugu casuumaya oo ku yaalo degmada Howlwadaag xaafadda Geed Jacayl ayaan kugu casuumaya ay igu tiri waan aqbalay anigoo soo koobaya markaan telefoonka aan lambarkii horan aan ka hayay aan xiriireynay maalin ayaa la iblamiyay bacda duhur xaafadii anigoo soo labistay ayaa waxaa dhacday roob inuu doo anigoo marayo lambar 4 marna maana ka niyajabin la kulanka qofka xiisaha aan u qabo in waqti aan soo qaato gurigii la ii tilmaamay bajaajkii way igeysay way iga tagtay albaabkii gargaraacay roob baa da'ayo anidan dharkayga dhan wada roob ayuu noqday ku dhawaad waxaan taaganahay 3 saacadood baa meesha taaganahay ilaa iyo 9 ama 10 loo sii dhow yahay galabnimo loo dhow yahay runtii waxay ii ahayd arrin aan nolosheeda aan iloobi karin qof baan dareemay inuu albaabkayga furay heblaayo ma joogtaa markaan dhahay codkeedii ma joogto iyadaan ila hadlayso it mean that inaani wax maqleen sidee guriga ku tagtay telefoon baa igu hagaysay gurigiina way ku tilmaamtay telefoonay kugu geysay laakiin markii meesha la tagay telefoonkii lama heli karo noqday waxaan qasbanahay ninkii bajaajlaha waa daahsan oo dhahay inaa iska fasaxo saa ugu celcelinaaye roobkiina da'ay telefoonka mar dambe oo iga galay waa ku soo baxaa la yidhahay albaabkii baa laga furay markaasaa la yidhahay heblaayo aawayaan dhahay waa ma joogtaa la yidhahay walaalay roob baa igu da'ayee codkan waa codkii aniga gabadhii aan isbaranay waaye maxaa dhacay waaye markaasaa la yidhahay adeerow waa qaldanta aniga qof naafo ah waxaan u aaminsanahay inuu dabarsoo u aaminsanahay gabadha aan raadinaysinna ma joogto soo lugoysay waxaa igaga daran dharkayga oo idil way qoyeen telefoonkayga
laftirkiisa biyo ayaa qayb ka mid iga gaaray waxaa markaa waxyar socday oo areas la yidhaahdo waxaa ku dhacay godkaas oo inuu ahaa boosaneer miyaa maogin meelaha biyaha lagu daadiyo bulaacadda ayaa godkaas la galay oo dharkaygo idil nijaasa iga naqday waxaan sameeyaa garan la ah ilaa magaalana waa jooga xaafadaydii waa degmada Dharkeenley way ka fogtay halkan howlwadaagii Dharkeenley waa wax badan baa u dhaxeeya so jacaylkaas xanuun ayuu lahaa murug ayuu lahaa laakiin runtiina maana isleedin gabadhii sidaasaan ku iloobay waa gartay waa dib u soo naqatay bal ka waran waxaad sheegtay in jacaylkaas uu nabarrab adag kugu reebay bal ka waran sidii aad uga dawowday ama uga buskooti wallahi horta qof aragna Afrika qabo haddana dhibaato maray way adag tahay sidoo qof ku aamino laakiin waxaan isxasuusiyay aan niyad iska dhaadhiciyay in horta magaalada Muqdisho dhan ka tago oo gobol aan aado darteeda xogaa aan maskaxdayda soo dejiyo Facebook wala social media hadana aan iska kansalo telefoon kale aan oo nicilaa in iska qaato codka aragana dadka loogu talagalay ay leeyihiin iska isticmaalo idaacadu iska dhageysto waxaas weydaan ku mashquul gool baan iska aaday xogaa iska soo habagadistay ku dhawaad 6 bilood 7 bilood baan iska maqnaa aan soo laabtay